kulan la filayay inuu dhex maro xisbiyada qaranka Somaliland oo la xiriiray sidii xal looga gaari lahaa xilliga ay ku qabsoomayaan doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Somaliland iyo arrinta guddiga doorashooyinka ayaa gebi ahaanba baaqday kadib markii ay ka soo qayb geli waayeen mas'uuliyiinta xisbiga muxaafidka ee kulmiye waxaana kulankaasi ku kaliyeystay xisbiyada u cidiyo wadani halkaasina waxaa ku sugnaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCD Engineer Faysal Cali Waraabe weheliyaan musharax ku-xigeenka xisbiga mucaaradka UCD ku-xigeenka xogayaha guud ee xisbigaasi mas'uuliyiin kala duwan halka xisbiga mucaaradka wadanina uu horkacayay hogaamiyaha xisbigaasi Xirsi Cali Xaaji Xasan gudoomiyaha kumeel gaadhka ee xisbiga wadani Cabdilqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde iyo xubno kala duwan oo ka tirsan labada xisbi inkastoo kulamo kala duwan ay hore u dhex mareen xisbiyada qaranka Somaliland welina xal lagama gaadhin arrinta la xiriirta komishanka doorashooyinka iyo xilliga ay ku qabsoomayaan doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee soo socda ee Somaliland xilligii waqtiga loo qoondeeyayna dadka inta badan darooso dhanka siyaasaddu ay tilmaameen inaanay ku qabsoomayn sidoo kale waxaa Somaliland dhawaanay mid wafti ka socda dalalka midowga Yurub oo kala hadlayay xisbiyada arrimo la xiriira doorashooyinka balse xisbiyada Somaliland weli arrintaasi xal kamay gaadhin waxaana la filayaa in maalmaha soo socda ay kulamo kala duwan oo arrintaasi sidii xal looga gaari lahaa ay yeelan doonaan xisbiyada Somaliland waxaana Somaliland in badan caqabad ku noqday doorashooyinka kala duwan oo muddadooda dib uga dhaca iyadoo xukuumadihii kala dambeeyayna ay si toos ah u ballan qaadeen inay waqtigooda ku qaban doonaan doorashooyinka Maan Axmed Ismaan TV Hargeysa.